maryan waxa ay la nooleed aabaheed iyo aayadeed oon iyada sinaba u jeclayn maryan hooyadeed waqti ka hor ayaa aabaheed furay kadib markii iyada oo keliya dhashay ilaa iyo markaasna maryan may aqoon meel hooyadeed adduunyada kaga nooshahay iyo iyada naf ahaanteedaba maryan waxay u go'nayd oo raaci jirtay ari aan tiro yarayn oo ido iyo riyaba leh wax dhiiqa ma lahayn arigaasi hadduu yeeshana iyadu awood uma lahayn inay maasho nafteedana uga faa'iidaysato hawsha ariga iyadaa iska lahayd manaaficaadkiisana aayadeed iyo ilmahay dhashaya iyagu aan warhayn ee hadba wixii la siiyo iska cuna laga yaabee in maryan ariga caana ka dhadhamiso waase hal mar oo keliya marka dadka intiisa kale ay sanka ka soo celiyaan maryan iyadoo waxaasoo dhibaato ay haystaan ayayan haddana ku nabadgeli jirine cawo iyo maalin waxay ahayd mid dil habaar hiif iyo dibindaabyo joogto ah kala kulanta aayadeed oo iyadoon waxba dhiqin xoolana aan war u hayn had iyo goorna gurigeeda dhexdiisa ilmaheeda ku ciyaarsata maryan dhibaatada culus ee joogtada ah darteed ayay inta baydaday ama fiigtay wixii la hadlaba waxay moodaysaa inay dilayaan masruuf ama biil ayay dilistu u ahayd oogadeeda nabarrada ku yaalna way tira beeleen aabbaheed waa iska dhegweyn aan sidaa wax u danayn marmar ayaa laga yaabaa inuu naagtiisoo si xun u rifaysa arko xaarxaariyo kana qabto inta badanse wuxuu u qaataa dilista maryan la dilayaa inay tahay lexajeclo iyo coodkoo la rabo in si fiican loo dhaqo maryan ama ha la dilayo ama ha lala hadlayee ma hadasho maxaa yeelay cid ka guraysaan jirinba deegaankay ku noolayde aadka cadowga ugu ahaa darteed ayayba noqotay qof mucaqadad ah aan sidaa wax u gelin aan nixin qoslin farxin hadallada dadku kula wada hadlayaana aan sidaa u danayn maxaa yeelay dadkoo dhan cadow ayay u haysatay aayadeed waxay aad u taqiin tirada iyo suuradinta ariga taasoo mar alla markay ogaato in wax maqan yihiin sidii shabeel ceesaan arkay ugu soo haliisho iyadoon waxba weyddiin galabtii dambe ayaa waxa dhacday in gooray maqrib ahayd arigiina soo xareenayo aayadii ay towday orgi keli ahaaye ariga ku jiray aayadii dhowr jeer ayay aad ugu noqnoqotay indhayntiisii waxay ogaatay in orgigaasi maqan yahay maryan oo horayba u towsanayd orgiga halgaadaha ku iman doonana horay ugu soo tala gashay ayaa aragtay in aayadeed la towday orgigii wakhtigu markaa waa habeen maqrib himow ah aryowgii xeroodeen geelashiina soo dheelmad habqamayaan waxaa iyana cidaha kuurka u wada fadhiya libaxyadii dadqaadka ahaaye meelaha wax ka jeeqaaqaya aabbaheed ama odaygii reerka wuxuu weli ku maqnaa soo dheelanka hala dhowr ah iyo gaadiidkii cidda maryan aragtay in lagu soo socdo aayadeedna iyadoo tib weyn sidata ay soo malabsanayso way tallantay oo istiri maxaad yeeshaa labada dhanba u daran oo hadday sugtana tibtaa ayaa ka meel waayeysa hadday carartana waxa ka horreeya waa libaax iyo dugaag aan u daahayne haddiiba kala jabsanaya waa markii ugu horraysay oo hadal nooli maryan afkeeda ka soo yeedho iyadoo tidhi wallay caawa midhaa ima dishid saa kuma sugayee dilkaagana in haddaba libaaxay cunaan ka doortay maryan markii ay sidaa lahayd way sii ordaysay aayadeedna iyadoo ul weyn wadata ayay ka sii daba ordaysay labadooda maryan ayaa dheeraysay haddiibana way ka libirtay aayadii iyadoo usheeda wadata ayay dib ugu soo laabatay gurigii welina waxa ay wadday hiifkii iyo habaarkii ay maryan u haysay goor dambe ayaa waxa soo xarooday geelii oo ay wadaan odaygii iyo wiil kuray ah oo uu dhalay aayadu waxay islahayd maryan waxay la iman doontaa geela hase yeeshee ma dhicin odaygii reerka ayaa tabay maryan oo aayadii weyddiiyey aayadiina waxay u sheegtay inay canaanatay maadaama orgigii weynaa la xaday islamarkaana maryan ay carartay intii aan odaygu jawaabin ayaa waxaa hoos iskula hadlay wiilkii kurayga ahaa maadaama uu aqoon u lahaa dhaqanka aayadii iyo waxa ka dhexeeya maryan iyo iyada wuxuu ku fekeray in maryan la dilay oo ay dhaawac dartii la soo kici laadahay iyo inay carartay oo meelaha ay dugaag marti u tahay ha yeeshee isagu ma hadline wuxuu ka dhursugay waxa arrinkaasi odaygu ka yeelo
odaygii baa qayliye oo yidhi naa miyaad dishay gabadha oo aad cayrisay miyaadan ogayn in meelaha dugaag dadqaadihi ka buuxaan isla markiiba wuxuu u baxay bannaanka wuxuuna u qaylo dhaamiyey maryan isagoo leh maryanay maryan aabba kaalay anigaa kaa ballanqaaday inaan caawa kadib lagu dilini odaygii wuxuu qayqayliyaba wuu quustay ugu dambayntii isaga naf ahaantiisaa libaax ka baqayey markuu meelaha wax dadayayey wuxuu sitay qori uusan sida badanba dhigin si uu isugu difaaco haddii bahal soo weeraro wuu soo laabtay oo jiitimihii inta soo adkeeyey ma fadhiisane wuxuu maryan ka baaray xeryaha xoolaha iyo hareeraha reerka oo idil waxba waa hadba dhan eeg madaxa ruxrux wuxuu yeelana garan waa mar buu is yidhi xaaska ma garaacdaa maadaama ay iyadu u sabab ahayd waxa dhacay haddana wuxuu ku daystay laga yaabee in dhibaatadu meeshay hadda joogto meel ka xun tagto intuu iska soo fadhiistay buu yidhi adaa tolaya ka tali waxay ila tahay reerka gabadhiisii adiga unbaa yaqaan meeshaad ka keeni lahayd adaa lagaaga fadhiyaa laguuna haystaa xaaskii ayaa harag waraabe alla u tuuray meelay wax ka tidhaahdana weysay wax kastana waxaa uga sii daran maskaxdeeduna qaadiba la'dahay berri ahaa ariga raaci doontidaa inay ooyshay ku sigatay adoo nabad la balawaara baloy kaalay lama yidhaah hadday kuu timaadana lama booyo boowow ayay iskula hadashay in cabbaara ayaa laysla hadli waayey wax la yidhaahdana la garan waayey la arag arrintu inay meel aad u xun taagan tahay wax ka qabashana ay ka tagan tahay way garwaaqsiisnayd inay dembi gashay inkastoy qof kibir iyo talaxumo u geysay tahay mar dambe oo dhowr saacadood la odhan karo odaygii isagoon hadlayn ayuu inta dhowr tagaarood ka walamwalamsiiyey qorigiisii oo xabbada dhuunta u yaallaanna inta la soo fadhiistay isagoo salka dhulka ku hayey iska hamiyey xaaskii inta ilmihii oo meelaha kala daadsan guriga gudihiisii u daadguraysay bay iska dhex seexatay meesha hadalka ama daqaqanku aad buu u yaraa doodi kama ay furrayn oo duruuftaa ahayd mid aan oggolaanayn wax nolol sidaa ahi ku sii jirto dhammaan waxaa loo wada muuqday dad isku wada cadow ah